adigu marnaba horta ma isweydiisay markaad rabto inaad jidhkaaga iyo caafimaadkaaga aad ka shaqayso isbeddelnaad rabto inaad samayso maalinkii waqti intee leeg ayaa kugu filan inaad jimicsi aad samayso si uu jidhkaagu isu beddelo ama ha noqoto inaad guriga ku samayso ama ha noqoto inaad jiimkaad ku samaysee horta saddex shay ayaynu maanta si wanaagsan uga hadlaynaa waa qodobka koobaad iyo qodobka labaad iyo qodobka saddexaadba intaynaan horta ugu yar gudagelin saddexdaa qodob ee aanad si wanaagsan aanad u fahmin waxaan rabaa inaan horta marka hore kula wadaago markii jimicsiga anigu aan bilaabayay su'aashan 100 jeer baan isweydiiyey oo waxaan lahaa si uu jidhkaygu isu beddelo caafimaadkayga inaan uga shaqeeyo maalin kasta waqti intee leeg ayaa igu filan inaan mataqaanayay sameeyo jimicsiga ama guriga aan ku sameeyo ama ha noqoto jiimka inaan ku sameeyo kolba kii ay noqotaba markaas waxaan badanaan arki jiray waxay hayd dadka kale waxay samaynayaan hebel wuxuu sameynaya heblaay waxay samaynayso hal saac buu ku jiray qofkaasi qof kale wuxuu ku jiray 2 saacadood qof kale wuxuu ku jiray 40 daqiiqo qof kale wuxuu ku jiray 50 daqiiqo anigu waxaan isweydiiyey markaa si aan isbeddel aan u sameeyo goolkan aan uga midho dhaliyo waqti intee leeg baa igu filan si aan maalin kasta wixii aan u joogteeyo una sameeyo taasaynu maanta si wanaagsan u gudagelaynaa waxaana rabaa inaad si wanaagsan aad u fahanto topic kasta ama qayb kasta si wanaagsan aan uga hadlayo haddii markaa waxaan ku hayaa waa samuuradii tan yar ma isticmaalayne samuurada weyn ayaynu isticmaalaynaa oo si wanaagsan kugu sharaxaya waayahay horta haddii aad jimicsiga hore ugu jirtay iyo haddii aad rabtay makiinaad bilowdaba saan ku yidhi su-aashan horta mar uu niyadaada way ku soo dhacaysaa inaad isweydiiso adigu shakhsi ahaantaada waqti intee leeg ayaa qofka bini'aadanka loogu talagalay inuu jidhkiisa iyo caafimaadkiisa uu ka shaqeeyo maalinkii kuna filan qofka su-aashaas horta haddaan niyadaada hore ugu soo dhicin way ku soo dhici doontaa waxaana rabaa inaynu si wanaagsan u gudagalno 3 qodob oo 100% muhiim ah qodobka koobaad waxa weeye muruqa aad jimicsiga siinayso maalinkaas ayay ku xidhan tahay horta waxaad ogaataa jidhkaaga markay noqoto muruqyadu isku wada mid maaha oo way kala waaweyn yihiin isku waqtina kaama qaadanayso haddii aad guriga ku samaynayso haddii aad jiimkaad ku sameynaysaba tusaale ahaan kale anigu markaan jimicsiga siinayo lugaha iyo markaan jimicsiga siinayo caloosha isku waqtiga ma qaadato waa caloosha markaan anigu jimicsi aan siinayo maalinkii 10 daqiiqo iga qaadataa haddii aan isiraahdo maalinkii aan rabo inaan lugaha jimicsi aan siiyo 10 daqiiqo lugaha jimicsi si ma kula tahay inay lugahaygu dhismayaan jawaabtu waa maya markaas sababtuna wax kale maahee muruqa caloosha iyo muruqa iyada luguhu isku mid maaha way kala weyn yihiin oo muruqa lugaha marka la barbar dhigo caloosha isku size maaha isku waqtina ma qaadanayso markaas waxay ku xidhan tahay waxa weeye maalinkaas haddii aad guriga ku samaynayso iyo haddii aad jiimkaad ku samaynaysaba muruqaad jimicsiga aad siinayso ayay ku xidhan tahay ee kuma xidhnaa muruq kasta maalin kasta inaad isku waqti aad siiso waayo waxaad niyaddii ku haysaa saan ku yidhi muruqyadu isku wada mid maaha wayna kala waaweyn yihiin marka inaad ku tala gasho maalinkaad rabto inaad jimicsi aad siiso lugaha tusaale ahaan oo kale waqti way yara qaadanaysaa maalinka aad rabto inaad caloosha jimicsi aad siiso waqti bay yar bay kaa qaadanaysaa waqti badan kaama qaadanayso markaad rabto inaad gacmaha jimicsi aad siiso waqti dheer kaama qaadanaysa waqti yar bay kaa qaadanaysaa marka taynad niyadda aad ku hayso waayahay qodobka labaad haddaba waxay ku xidhan tahay soo kale waxa weeye waqtiga adigu shakhsi ahaantaada aad hayso dadku isku wada lifestyle maaha isku nolol maaha waxa laga yaabaa inaad adigu family aad leedahay waxa laga yaabaa inaad single aad tahay waxa laga yaabaa inaad maalinkoo dhan aad shaqayso habeenkii dhan aad shaqayso waxa laga yaabaa inaad gelina wax barato gelina aad shaqayso marka horta waxay ku xidhan tahayna waxa weeye adiga shakhsi ahaantaada maalinkii waqtiga kaa go'a maalinkiina waxaa ku jira waxa weeye waa 24 saacadood 24 saacadood waqtigaad aad u goyn karto ayay ku xidhan tahay aniga tusaale ahaan oo kale markay noqoto waqti badan waan u hayaa oo dee family iyo carruuro ima joogaan oo dee jiimkii waqti waan siin karaa maalin kasta soo kale waxaad niyaddii aad ku haysaa haddii aan anigu jiimkii maalin kasta tegayo macnaheedu maaha adigu inaad jiimkii aad tagto ama jimicsiga guriga aad ku samayso maalin kasta ee waxaad ogaataa inay ku xidhan tahay waxa weeye waqtiga adigu shakhsi ahaantaada hayso hadaad family leedahay
haddaad labada gelin baad shaqayso haddii mataqaan waxay noloshaada iyo lifestyle-ka ku xidhan dad keliya nooshahay markasta waxay ku xidhan tahay waqtigaad hayso ama aad u goyn karto jimicsiga caafimaadkaaga inaad ka shaqayso haddii marka tusaale ahaan oo kale aad tahay qof laba shaqo ka shaqeeya gelinka hore iyo gelinka dambaba xilli dambe soo dhameeya shaqada tusaale ahaan oo kale saacad ama 40 daqiiqo keliya aad tahay inuu jimicsiga aad ku samayso intaasoo keliya aad hayso maalin kasta waxaad horta niyaddii ku haysaa inaanad excuse ama marmarsiya aanad ka dhigan ee aad wax kastoo ay noqotaba aad intii awooddaada aad samayso hadday noqoto lugaha hadday noqoto dhabarka hadday noqoto caloosha waqtigii maadaama uu lifestyle-kaaga nolosha dadka kale ay ka duwan tahay inaad taada adigu eegto iyo waqtigaad helayso bointigaasina waa bointiga labaad bointiga haddaba saddexaad ee u dambeeya waqti u gaar ah ama loogu talagalay ma jiro taa niyaddaada ku hay waan kugu celinayaa waqti loogu talagalay qofku in uu jiimka ama jimicsiga sameeyo maalin kasta ma jiro maalimaha qaar aniga waxay igu qaadataa inaan jiimka joogo 30 daqiiqo maalimaha qaar waxay igu qaadataa saacad iyo badh maalimaha qaar waxay igu qaadataa saacad keliyaata markaas niyaddii ku hay waqti u gaar ah ama hebel loogu talagalay ama heblaayo loogu talagalay ama mataqaanay qofku si uu isbedel u sameeyo dadkoo dhan ay ka wada siman yihiin loogu talagalay oo waqti ah inaanay marnaba aanay jirin waayo waxaan rabaa runtii reality inaad ogaato inay muhiim tahay kuna xidhan tahay kow maalinkaas jimicsiga aad samaynayso muruqa aad ugu talagashay inaad jimicsi aad siiso laba waqtiga aad adigu shakhsi ahaantaada aad hayso oo noloshaada ka go'i kara waaysan ku yiri tayda noloshaydii noloshaada isku mid maaha noloshaadii nolosha saaxiibka isku mid maaha noloshaadii nolosha walaalka isku mid maaha qof kasta lifestyle-kiisa iyo time-ka uu hayo ayay ku xidhan tahay niyaddaadana ku hay waqti u gaar ah oo loogu talagalay qofka bini'aadanka inuu jimicsi sameeyo maalin kasta ma jiro waxaan rajaynayaa inaad si wanaagsan aad ii fahantay waxaa inoo ballana axadda soo socota peace out